madaxweynaha dalka Turkiga ayaa si gaar ah u sharfay una maamuusay sarkaal dumar ah oo xijaaban oo ka tirsan ciidamada ammaanka Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa gabar la yiraahdo Shuli oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada Turkiga wuxuu guddoonsiiyay shahaado sharaf ay kaga duwan tahay saaxiibadeeda kale ee ka qalin jabiyay kulliyadda tababarka ciidamada Gendarmerie Academy ee dalka Turkiga. madaxweyne Erdogan ayaa ka qayb galay xaflad ay ku qalin jabinayeen 462 sarkaal oo 45 ka mid ah ay haween ahaayeen 2751 saraakiil xigeen oo ay 263 ka mid ah ay haween ahaayeen. wuxuuna u hambalyeeyay dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada qalin jabiyay ee tababarka dhamaystay isagoo u rajeeyay inay ku guuleystaan shaqooyinkooda mustaqbalka. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay inay xafladani muhiimad gaar ah u leedahay una u yimid inuu si gaar ah ugu hambalyeeyo haweenka qalin jabiyay, isagoo markaasna diiradda si gaar ah u saaray haweeney sarkaal ah oo la yiraahdo Shuli oo ka soo jeeda qoys u soo halgamay dalka Turkiga oo taariikh ku leh. madaxweyne Erdogan waxa uu xafladda ka yiri sidan: waxaan maanta ammaanaya xusaya oo u duceynaya dhammaan halyeeyadii geesiyaasha ahaa ee naftooda ku waayay iyagoo u adeegaya madax bannaanida dalka iyo qaranka. sababta aan maanta halkan u imi ee aan sida gaarka ugu maamuusayo saraakiisha dumarka ee xijaaban waa inay sameeyeen geesinimo xilligan, sababtoo ah dumarka xijaaban aad ayay ugu yaraayeen ciidamada kumana soo biiri jirin. sababtuna waa inaan iyaga dhiirigeliyo, waxaana rajaynayaa inay door fiican hadda kadib ciidamada dalka ka qaataan. Shuli waxay ku baastay darajo sare dadaal badan oo ay samaysay darteed. waan ku faraxsanahay inaan guusheeda goobjoog u ahaado. sharaf ka weyn ma jirto maanta inaan farxadda la qaybsanayo Shuli. waa gabadh wax kasta iga qiimo badan. nidaamkii dalkeena horay uga jiri jiray oo u diiday haweenka xijaaban inay dawladda hay'adaheeda ka shaqeeyaan, maanta nidaamkaasi haddii uu jiri lahaa soo inagama lumiyeen oo inagama dayaceen maanta geesiyadan Shuli xijaabkeeda darteed, weliba iyada iyo kuwa kale oo la mid ah. waa sababta aan weligay uga soo horjeeday in qof lagu takooro diintiisa darteed. diin kasta qofku ha haysto, laakiinse dalkan ayaa inaga dhaxeeya, waxaana sharaf yeelanaya qofka dalkan si fiican ugu adeega. Shuli waxaan aad ugu sharfayaa inay ka soo jeedo qoys waddankan u soo halgamay oo la wada garanayo. Shuli qoyskeeda qaar ka mid ah waxay u dhinteen oo naftooda ku waayeen iyagoo difaacaya sharafta dalkan. iyaduna maanta inay barto jidkii qoyskeeda ayay doonaysaa, waana mid aan ku hambalyeynayo. sidii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu u sharfi jiray una darajayn jiray asxaabtii ka qayb galay dagaalkii Badr, ayaan aniguna u sharfaa qof kasta iyo qoys kasta oo dalkan u soo halgamay.